qisada qasrigan quruxda badan waxaa ka buuxa micno dhadhan leh oo xaqiiqdii xambaarsan jacayl iyo balan aan been ahayn. Taj Mahal waxa uu ku yaallaa dalka Hindiya, gaar ahaan magaalada Agra ee dhacda gobolka Uttar Pradesh, waana magaalo uu bartamaha ka maro webiga quruxda badan ee Yamuna. tirada dadka ku nool magaaladaas ayaa waxaa lagu qiyaasaa 1.5 milyan oo qof, waana magaalo lagu naaneyso magaaladii jacaylka. bilowga qisadan ayaa timid kadib markii wiil ka tirsan boqortooyadii Mughal oo uu jacayl daran u qaaday gabar muslimada kana tirsaneed boqortooyadii Farisiyiinta. kuwa aan ka hadlayo waa Shah Jahan iyo gabadhii quruxda badneed ee Mumtaz Mahal. 5 sano kadib kulankoodii ayay isguursadeen sanadka markuu ahaa 1612. hase ahaatee 19 sano kadib oo ku beegneed 1631 ayaa waxaa geeriyootay boqoradii Mumtaz Mahal kadib markii ay dhashay ilmaheedii 14aad. dardaarankii ugu dambeeyey ee ay ninkeedii uga tagto ayaa wuxuu ahaa inuu iska diido guursiga gabar kale kadib dhimashadeeda iyo inuu u sameeyo qasri aad u qurux badan, taasoo ay ku tilmaantay sababta keliya ee adduunka ugu xaqiijin karaan qiimaha daacadnimada uu jacaylkoodii xambaarsan. kadib dhimashadii Mumtaz Mahal waxaa Shah Jahan soo wajahay murugo iyo cidlo, taasoo sababtay inay hoos u dhacdo boqortooyadii Mughal ee uu isaga ka arrimin jiray. isla sanadkii 1631 ayaa wuxuu go'aansaday oofinta balantii uu xaaskiisii ka qaaday, wuxuuna bilaabay dhismaha qasrigan hadda taagan. shaqaalihii dhismaha oo ka kala yimid magaalooyinka dalka Hindiya iyo guud ahaan qaaradda Aasiya ayaa waxaa lagu qiyaasayay dad kor u dhaafaya 22,000 iyo 1,000 ka mid ah xayawaanka loo yaqaan maroodiga. in la dhammaystiro oo uu yeesho muuqaalkan quruxda badan ee uu hadda yahay ayaa waxay qaadatay 22 sano, waxaana la dhameeyay sanadka markuu ahaa 1653. waxaa xusid mudan in dhismaha Taj Mahal uu ku dhex yaallo qabriga Shah Jahan oo ah isla boqorkii dhisay iyo xaaskiisii Mumtaz Mahal oo ah gabadhii loo dhisay. waxaa ilaa maantadan dalxiis ku taga kumanaan lamaane oo daafaha adduunka ka kala yimaada si ay dhismahaasi taariikhiga ah maruun u soo arkaan. waxaa la sheegaa in boqor Shah uu isaga oo nool ku dardaarmay in qabrigiisii laga agdhiso midka xaaskiisa. dhismaha Taj Mahal waxaa ku dhex yaalla qabriyada boqorka Shah Jahan iyo xaaskiisii Mumtaz Mahal. waxyaabaha kale ee cajiibka ah ee ku yaalla qasriga Taj Mahal waxaa ka mid ah guri lagu soo dhoweeyo martida iyo dadka caanka ah ee soo booqanaya dhismahan taariikhiga ah. sidoo kale waxaa ku yaalla masjid baaxad weyn maadaama boqorkii dhisay ee Shah uu haystay diinta Islaamka. 3 meelood meel dadka adduunka ku nool ayaa garanaya dhismahan jacaylka ee Taj Mahal, ugu yaraan maqlay haddii aysan booqan. waana meel ka mid ah meelaha loogu dalxiis badan yahay taariikhda adduunka, waxaana sanadkii u dalxiis taga 7 ilaa 8 milyan oo ruux. inta la og yahay dadka caanka ah ee u dalxiis tagay dhismahan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Mr. Clinton iyo xaaskiisii Hillary Clinton. sidoo kale waxaa booqday dhismahan jilaagii caanka ah ee aflaanta Hollywoodka ku caanbaxay ee Tom Cruise, sidoo kale madaxweynaha mayalka adag ee dalkaasi Ruushka Vladimir Putin, kaasoo lagu tilmaamo mid qalbi adag oo aan wax jacayl iyo naxariis qorin. waxaa halkaa inoogu eg qisadii iyo sheekadii ka dambeysay in la dhiso dhismaha quruxda badan ee ku yaalla dalka Hindiya ee Taj Mahal. inta aan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo nooli kulante.